الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدة كور قبطان وحن هلك المسؤولين إن تعصي كسر ما يدعو قرحي سدحي لباتنكي بشماش لبكن iyo 22 ka dhacay magaalada Beledweyne oo runtii ahaa qarax tiiraan reebi doona inta taariikhda bini'aadamka ay jirto. waxaan rabnay inaan barnaamijkeen haddii alla idmo aan iska guda galno. waxaan yeerayaa si aayaadkii qur'aanka uu inoogu furfura Sheekh Aadam falyatafaddal mashkuuran ya ustaad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. إلهي وحنا كبرينا kulankaan isugu nimaanay inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhigo mid la aqbalay. dadkii walaaladeenna ahaa, ahalkeenna ahaa, qaraabadeenna ahaa, nagudiir iyo dhaqan iyo midab iyo ahalnimo aynu wadaagnay ee geeriyoodayna ilaahay ha u naxariisto. inta dhaawacana ilaahay ha u boogadhayo. dalka iyo dadkana allah inoo hagaajiyo. walaalayaal, kulamada noocan oo kale marka la isugu yimaado ilaahay wuxuu sheegay laa khayra fi kathiirin min najwaahum. in badan oo kulamada dadka kamid khayr ma leh ilaa markii wanaag la isfalayo, wax khayr la isu sheegayo, sadaqa la is amriyo, dadka kulmayana ilaahay u dhawaanaya subxaanahu wa tacaala. waxa lagu kulmo wax ugu wanaagsan baan isugu imaanay oo ah inaynu maanta muujino jirkeennii dhibaato soo gaartay. rasuulku wuxuu sheegay mu'miniinta inay hal jir yihiin. jirka hadday dhibaato soo gaarto dhammaantoodna saameyn ku yeelanaysaa. marka waxaan soo dardaarmaynaa inaynu hadalkeenna wanaajino oo hadal qurux badan aynu jeedino oo aan qulubta ilaalino oo aan isku ducayno oo dadka mawtaadka maanta qubuurta ku jirana aynu halkaa aynugu tirno duco iyo alla bari. qof walba hadlayana waxaan ka codsanaya wax dalka iyo diinta iyo dadka u wanaagsan fariin nooca inuu gudbiyo. waayo adduuniya aakhiraba taasaynu ku badbaadaynaa. waxa halkaa ina dhigay waxa weeyaan hadalkeenna wey. allah u naxariistay Sheekh Umar Faaruq ayaa beri eray buu yidhi cajiiba. wuxuu yidhi saan u lahayn buu yidhi madaxweynihii xumaa, dowladdii xumay, askartii xumaa, maxaa la yidhaha dowladdii hoose xumay, wixii xumaa waa nabad xumaadeen buu dhammaantood. sidaa darteed waxaan u baahanaa had iyo jeeraale inaynu nidhaahno waquuluu linnaasi xusna. hadalka wanaagsan dhahbay dhahay. marka allah ina barakeeyo dhammaantiin. إلهنا وحنا كبر أن هذا الكلام يقول كلام مثل أخبار الله يكذبه. خير الدنيا والآخرة الله ينسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدة كور قبطان حاول كلام كان وحا صليك وأخ تقصيدا يدعنا سواء قاسمي جالية إرشاب الله مقالدا استقر بسويدا وحربائنا نؤيرو قدومية محمد آذن فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد حفلة ورديقة عاون السوق النمد وعن وتعسير لأنه وراله كوجيري ذي قرحي كان عاي مقالة Beledweyne سيدا حيواتنكي بيشان مارش هاد مانتا إنه كوجرنو. waxaan leenahay dhammaantood intii meeshaas ku geeriyootay ilaahay jannadii firdawsaha ka waraabiyo. eheladii iyo qaraabadii ay ka tageen samir iyo iimaan ka siiyo. runtii waxay arrin maaragtay aad u xanuun badan. waxaan rabaa marka tacsida markaan intaas u gudbo runtii dad badanaa ku dhintay. inkastoo dadka meesha ku dhintay magacyadooda aan hadda kor ka wada hayn, haddana waxaan rabaa qaar kale inaan cusub runtii in la yiraahdo xasan cali cabdi oo xildhibaan hore ahaa jiray oo reer Finland ahay uu ku dhintay dagaalkaas qaraxaas iyo gabadhana aamina cabdi maxamed ayadana sidoo kale ku dhimatay
nin kaloo nabadoon oo la yidhaha tawna sabriye oo reer suudna reer tubudaasna uu ku dhintay qaraxaas dhammaantood waxaan leenahay intii ku dhimatona allah u naxariisto taas tacsida markii intaasaan u gudbo waxaan rabaa maamulka hirshabeelle oo ugu horeeyo madaxweyne cali cabdullaahi xuseen guudlaawe iyo madaxweyne ku-xigeenka yuusuf axmed hagar dabageed wasaaradda amniga hirshabeelle gudoomiyaha gobolka hiiraan maamulka suu u dhan yahay waxaan leeyahay qaraxaas dhacay oo ka dhacay lamagalaay xarunta gobolka hiiraan runtii meel amnigeedu aada u sugan yahay ay ahayd oo mataqaanaa sida lagu galay ay adag tahay kolba waxaan is leenahay maamulka iyo intay qusayso dhan waxaan looga fadhiyaa su-aal baa taagan runtii su-aashu waxa waaye si arrintaas ku dhacday in baaritaan dhaba la sameeyo dadkii ka dambeeya howshaas iyagaana mataqaanaa in cadaaladda la horgeeyo arrintaas waa baaqaan u diray maamulka hirshabeelle waxaan kaloo rajeynaa dowladda federaalka soomaaliya inay qayb gacan ku siiso kala qayb qaadato baaritaankaas loo rabo in maaragta intaas dadkii walaalaha meeshaas ku geeriyay si cadaalad loogu helo intaas waxaa ii dheer qaraxu runtii wuxuu burburiyey saa ogtihiin maamulka waxaan dhihi lahay isbitaalkii magaalada beledweyne oo totale ku baaba'ay marka waxaan is leeyahay arrintaas gacanta koowaad waxaa iskala maamulka hirshabeelle iyo dowladda federaalka inay dhisaan waxaa kaloon codsan lahaa oo aan ku hadlaa magaca jaaliyadda reer hirshabeelle ee sweden iyo jaalidaha kaloo adduunka dhammaantood in isbitaalkaas qayb laga qaato si dib loogu dhisi lahaa oo mataqaanaa dadkaasi ay maaragtay isbitaalka hadduu jijaba xataa qof dhaawaca meel dhiga ma laha marka waxaa kaloo is leeyahay dowladda federaalka lafteeda inay qayb ka qaato isbitaalkaas dhismihiisa wabilahi tawfiiq intaasaan kusoo gabagabayna hadalkii tacsida iyo baaqa sugi jiray mahadsantahay wadan gudoomiye maxamuud markana waxaan wacayaa ugaas ibraahim sheekh si kelmadii ku aadanay tacsidan iyo ducadan oo halkan isagana ugu soo jeediyo soo dhawow ustaas walaalaha qaaliga dhammaantiin waa idin wada salaamay waxaan rabaa aniga codkayga inaan ku darsado taxsiyadii maaragta mashaqadii ka dhacday beledweyne ay ku dhammaadeen mas-uuliyiin iyo shacabba intaba ay ku halaagsameen intii ku dhaawacantay allaha u boogadhaya intii ku dhimatayna jannadii firdows allah ka waraabiya gaar ahaan waxaan isleeyahay mas-uuliyiintii ku dhintay halkaasi aada iyo aad ayay noo xanuujiyeen iyo shacabkiiba intaba waxaan uu taxsiyeynaynaa eheladoodii shacabka soomaaliyeed guud ahaan xukuumad iyo shacabka intaba iyo maaragta ehelkii dhammaantiisa waxaan rabaa inaan fariin yar u gudbiyo xildhibaanadii laga soo doortay hirshabeelle guud ahaan qabiilkuuna ay sheegi maayo laakiin xildhibaanadoo midaysan waxaan rabnaa arrintaasi mugdiga badan oo ku haraysan in maaragtaa markii un maaragtay ay isu tagaan iyagoo midaysan in arrinkaasi ay dabagalaan oo ay maaragtaa mowqif midaysan ka qaataan ayaan ka codsanayaa arrintaas waxaan gudbinayaa xildhibaanada cusub ee hadda tegi doona baarlamaanka in cadaalad ay helaan dadkaasi meesha ku geeriyooday dhammaantood waa idin salaamaa insha allahu allah u naxariista intii maaragtaa dhimatay guud ahaan intaasaan kusoo gabagabaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu khayr allah kusiiya ogaas ducadaadana allah noo aqbalo fariintaas aada gudbisayne insha allahu tacaala waxaan isleenahay laabo duleelo ayay ku dhici doontaa haddii alla idmo waxaan raacsiin lahaa arrimahaas ka dhacay mashaqadaas ka dhacday beledweyne xildhibaanada cusub ee lasoo doortay waxay u noqon doontaa cabir ama halbeeg si loo ogaado waxtarkooda iyo tayadooda waxay u noqon doontaa siday jawaabta uga bixiyaan ama ay uga falceliyaan si ay u kasbadaan quluubta dadka ay ka yimaadeen waxaan rabaa anigana inaan bal arrinkaasi hoosta ka xariiqo
waanu hore aan idhaahdo waa baroobadii ugu horeysay ee ladinku tijaabinayo, waa kasbadii ugu horeysay ee ladin gelinayo si loo ogaado nuxurka dhexdiina ku jiro. markana waxaan rabaa inaan waco gudoomiye cabdiqaadir cukaasha, falyatafadal mashkuuran ya gudoomiye. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمتي waxaan iskugu nimid waa waxyaabo macnaha kulley dareen ah, dareenkaasoo ka turjumaya macnaha mashaakilkii ama mashaqadii ka dhacday gobolka hiiraan, khaasatan magaalada madaxdiisa beledweyne. run ahaantii arrintaasi waa arrin xanuun badan raabtay. dabcan loo baahan yahayna sida hore loo sheegay in wax laga barto. marka horta intii dhimatay allaha u naxariisto, intii dhaawacantayna allaha u boogadhayo. intaas kadib run ahaantii hawshaasi hawl fudud ma ahan, hawl intaas lagu soo afjarana ma ahan, hawl lagu iloobana ma ahan. waxaan isleenahay khaasatan mas-uuliyiinta joogta gobolkaas, ama ha ahaato mid dowlad goboleed ama ha ahaato mid gobolka ama hiiraan, waxaa kulley dabcan saaran mas-uuliyaddaas siday uga falceliyaan dabcan waa wax laga wada sugaayo ama la wada fiirinayo. hadday tahay macnaha mashaqadii dhacday dabagalkeedii iyo kugagaarideedii, iyo hadday tahay musiibadii ay reebtay ama waxyaabihii ay reebtay, dhaawacyadii ay reebtay, burburka ay reebtay, waxa ay macnaha ka geystaan ama ay ka sameeyaan. waxaa la sheegay in isbitaalkii keliya ee magaaladaas ku yaalay oo ku burburay dhacdadaas. run ahaantii waxaa ku filan hadday macnaha u istaagaan ama ay fiiriyaan dhankeeda, hal xildhibaan macnaha khidmada ay ka qaadeen oo macnaha dabcan oo ku soo raadiyay kursigaas ayaa ku filan, iska dhaaf macnaha 26 xildhibaan qarashaadkoodii. marka dabcan waxaan filayaa inay arrintaasi ay yeeshaan mas-uuliyaddeeda, una istaagaan dabcan kana falceliyaan. ummadduna way fiirsanaysaa, ilaahayna wuu fiirsanayaa. marka dabcan dadkaas mas-uuliyiinta ah oo ugu sarreeya madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen wiidlaawe, oo ku xigo yuusuf axmed hagar dabageed, saaxiibkii cali jayte. kulley waa arrintaasi ayagay dul taallaa macnaha maanta. ciday la kaashanahayeen ama meeshii la aadi lahayeenna waa macnaha ayaga iskale, macnaha aragtideeda iyo fikirkeeda iyo go-aankeeda iskale. laakiin waa mas-uuliyad ayaga maanta dabcan ka saaran, qoorta ka saaran ilaahay hortiisa iyo shacabka hortiisaba. marka insha allah walaalayaal kolley hadal badan hama buuxsho, waxaan kusoo afjaraya intaas. ilaahay saamahan soo qaadnay iyo arrintaan iskugu nimid ajirkeeda iyo xasanaadkeeda allahna siiyo. sababtoo sida hore loo sheegay kulamada la iskugu yimaado saddexda kulan oo la sheegay waa mid kamid a waay dabcan. marka insha allah allah noo aqbalan leenahay, allahna isku gaay dambi dhaafo. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. markana waxaan rabaa inaan kelmadiisa iyo gudoomiye maxamed mukhtaar sheekh. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إله بأن هذا له كل كان آن عاوز فوقنا ما نبرر ديغداد وكل نودر سوي ما كل كوو خير كبدل نواي سيدو عبد الشيخ إن النور شيخي وكل آدي آد وأجر بدن واي. أنت صدق قدمه وحن آدي آد وكرا يسنى هاي أما كتعسيدين هنا geeridii ka dhacday magaalada beledweyne ee hirshabelle. geeridaasay tegey oo dad badan ay ku dhinteen, dad badan ay ku dhaawacmeen. waxaan leenahay intii dhimato allah u naxariisto, intii dhaawacana ilaahay u booyo dhago. kolleyba anoo ku hadlaya magaca odayaasha hirshabelle ee stockholm ama sweden oo dhan, anoo magacooda ku hadlaya waa ka tacsidaynaynaa dhibaatadaas ka dhacday. arrintii nabadgelyada ee nabadgalaydana
ku noqon maayo guddoomiyaheyna hirshabeelle ayaa ka hadlay guddoomiyaheyna arrinta soo uga hadlo baaqa u jeedayna guddoomiyaha ayaa la qabnaa aniga ku noqon maayo saas awgeed waxaan ka tacsidaynaynaa arrintaas ka dhacday iyo in baalis laba la sameeyo nabadgelyada magaalada beledweyne iyo hirshabelle oo dhanna lagu dadaalo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aada iyo mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina